nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ninkaanu yidhi waxaan ka xirtay xanuun itabar dareeyey oo nabigu wuxuu yidhi insicahaa sii buu yidhi iska bixi fa innahaa laa taziiduka ilaa wahnan xanuun mooye wax kale kuu siyaadin mayso buu waxaad gacanta ku xiratay xanuun waxaanan kuu siyaadin maayo iska fur buu yidhi fa innaka low mutta haddaad ku dhimato saas adigoo aaminsan birtaan inay wax kaa difaacayso adoo aaminsan haddaad ku dhimato wahiya calayka iyadoo dushaada saaran oo ku xihan tahay ma aflaxta abada weligaa ma liibaanaysa marka qofku hadduu u xirto xariggan ama qardhaastan inay dhib ka celinayso oo awood ay dhib ku celayso leedahay waa cibaadaadkan ka soo marnay ilaahay subxaanahu wa tacaala gaarka u leeyahay waa shirki weeye qofka isaga wuxuu ku dhacay shirkigana waa taqaaniin qofka shirki la yimaada faqad xabita camaluhu camalkiisu waa buray macnaha qofka isaga ahay diintii waa ka baxay weeyaan yaan la fududaysan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkaa wuxuu ku yidhi kuu siyaadin mayso ilaa xanuun mooyaane lianna iyadu tala saarsaday qardhaastu waa la mid waynu ka hadli doona haddii qur-aan ku qoran yahay haddaan qur-aan ku qornayn xirsiga waxay oran jireen waa la mid waxyaalahay dadkaasu isticmaali jireen waxyaala cajib waxaa ka mid a kismaayo maraan joogi jiray baan waxyaalo waxay yaqaaneen badanaaba aad iyo aad khuraafa waxaa ka mid ah bacba biyaha badda lagu soo qaadaya guriga ilinkiisa guri walba ilinkiisa waliba xaafid calani la oran jiray guri walba ilinkiisa bac oo biyo badda ay ku jiraan baa suran halkaas ma soo dhaafaysa ishu marka isha ka difaacaysa waxaa ka mid ah dukaanaan joognay waxaas waraaqba wax ku xirnaaya xarig ku xirnaaya marka ninka ilaah baan weydiiyey wuxuu yidhi magacyada asxaabulkahf baa ku qoranoo haddii tuugku habeenka yimaado way dhaqdaaqayaan oo saqamayaan marka tuug baa ka cararaya asxaabulkahfinaas yani magacyadooda waxaa laga soo naqliyaa israailiyaadka wax sugan ma aha oo la yaqaano maaha marka qofku wuu ku degdegayaa marka si maaragtay uga difaaco waxyaalii guriga soo dhici lahaa marka wuxuu ku khasbananayo qofku aaminayaa in asxaabulkahfi raggii يعني الله سبحانه وتعالى سورة الكهف كجاه الله هذه مقعية وماشى سورته إن هبين كمارة الأقدام ينسيته بعرض مركو حيالها النوع أو نبي وحويان إلا يسكيل عشان وحكى له كم ده إن حولها أنا كل رجلين جيل كل رجلين حوله كل رجلين سي إيش أقول أزلين بقيل بقول جيل له دور حلو كم ده بقورته حلو حرايا أنت أنا صور شيء أما حرب بالله حرايا أما بير بالله حرايا أما دم بالله حرايا سي أقول على سجيرة إيش هو حلا منه هذا محيطها وين نسوي اليوم محل لو وحده هذه لو وحده إننا يدب كإلى الله سوى شتى ده إلهي بوحي الله سبحانه وتعالى هذا آمن توني وحنا وحكعلنا يوم وشرك ويا إلهي بس كلامه إلهي سبحانه وتعالى عبادة كلمة إلا آمن وتوكلوا هذه القرآن لو قرأ وراء وقفك الله حلو وكلي أما دون القرآن هاي أحاديثهين وين كهل دون إن شاء الله تعالى علماء وحكي هذا النبي عليه الصلاة والسلام مركا جيل من كهل يحولها وحل وحلا وحيرين النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا النبي عليه الصلاة والسلام نبو دري محولة دري ألا يبقين إنوسا هرين في رقبة بعير رتيق قورتي سنين كهر قلادة من وتر كل لقسمي حرق قانصدا معناها لقسمي حرق قانصدا وحنا اللي وحنا لقسمي جري السيد دقيقة يبغى لقسمي سمرك قفكو قانصدا كذا يحرق قان وحوق يشوا سيدو بدنا والله استيق عمل وي يعني فلارتيس كعمل رحسن marka wuxuu nabigu yiri dadka inta dhaxtagto waxad ku tiraada rati qoortiisa uu ku xirnaan karo waxyaalaha noocaas oo kale illa qud'at ila yugo weeyaan marka lama ogola xoolaha lagu baxli karo sababta meeshii waxa soo galayo cibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala iska laha oo tawakkulka hayba waxa uu isticmaashay cid kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa dhiba yani dhibar ka qaadi kara wana lagu siin kara subhanahu wa ta'ala ومن يثق قفي كل صوناده بودعة أليلة وتنشينا أليلة لها بضع على الصقاطة أو أما سناب وحويه وحسن مجرى نعيدة بالرواية وكريبة بس بحجرة أو حلقة أما قوبك عن تكحرته أما لبته أو أعين الذئاب ييد إشورة ييد انتي إيش سلقص بحيه وقرتي اللي بحرته أو خيط أما دون إسكحرة أو عضو من النصور عضو حبين أما اللف أو من النصور شمبركاس قلرك وكرويان أو دنتي حبينتي تسوقات وإسكحرة
rajul jinniga waa ka baqa aw ama sawatarin qansada xarigeeda oo ama turbatil quburi qabriyaasha ciidooda soo qaata li'ay amrin arrin kasta u soo qaato kain ahaaday tacalluqahu xirashadu u soo xirtay wax kastaba ha ahaadeena wakaalahu allah uga tago qofka isaga subxaanahu wa tacaala waxaa loo tala saarsanaya waxa uu isku xiray ilahay faruu ka qaadaya qofka isaga xanuun kastoo ku hayay sidiisuu ku haynaya weeyaan wakalahu allahu ilaa maa callaqah waxa u xirtay buu alla u deenaya subxaana wa tacaala marka in la iska ilaaliyo marmaan waxyaalahaas qofku xiranayo waxyaalaha qofka shirki u keenay weeyaan abuuraha oo kale wax laga soo qaadanayo waxaa arki jirnay hadda marka qofka kacbada taga waa aragtan dadkan ka yimaada afrikadaas koonfureed west africa kale iyo waxaa arkaysaa maryaha ba waxaa la marinaya xagga yani kacbada la marinaya qof baa shaar iska bixinaya caawur mase u marinaya marmarnaya waxaa la leeyahay hadhow marka la noqdo baa la qoynayaa biyahaas dadka jiran baa la siinaya waa laga barakaysanaya maradaa la soo mariyay kacbada dad baa la siinaya maalba koob qof loo shubay cabbaayo qof xanuunsan waxaa la aaminsan yahay inuu qofkaasi xanuun kaga baayo marka arrinka haddaad aaminsan tahay ictiqaadsan tahay in shaygaasi xanuun kaa qaadi karo jin kaa celin karo waa shirki weeye ilahay subxana wa tacala iskale arrinka isaga ثم الرقى انت مركو كبلابي تفدي لاستفاي قران صادق ثم الرقى تفدي لتفاي من حمة اذا فعلت هدا وسميسو من حمة حمده قنده لا لكن علمadu waxay xadiis ku iimaanay ku macnaayeen sunta bahalka qanina qofka dib qalooc oo kale masko kale bay ka xiran jireen inuu san bahalkaas cunin qofku cunana uu maaratay وقنينا قفك إساق سنت يجاري ثم الرقى تفدي إذا فعلت هذا أصميس من حمة يعني بهش هو سادي وكبقى يسنت هذا أو أمس عين إلبا ظهرت يانو عورين يانو إلين يانو عيوم بأحرتين فإن تكو هديت هاي مركب تفد على تفا وحال تفايا من خالص الوحيين لبدا وحي وحلقة سوقات خالصة قرآن كي حديثك waxa qofka ku tufaysa haduu quraanki iyo xadiiski uu yahay fadaaka arrinkaasi min hadi nabiga hanuunkiisi wadadiisi weeye iyo shariicatihi shariicadiisi weeye wadaaka arrinkaasuna la ikhtilaafa khilaaf kuma jiro fi sunniyatihi inuu sunnayahay qofka marka wax ku tufaysa ama isku tufaysid waxa qofka lagu tufaaya haduu yahay quraanka iyo sunnadii aad ka soo qaatay xadiis nabiga sababta waxa jira waxyaalo nabigu adkaar uu sheegay waxa kamid ah waxyaalo qofka Allah hasbi Allah yani waxa kamid ah bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwa samii'un 'aliim qofka haduu subaxda akhristo maqanna ma qabato ila galabta ka gaarayo oo kale saasoo kale adkaarta noocaas qofka haduu ka soo qaatay ama quraan ka soo qaatay waa sunna weeyaan taa lama diidan waxa la diidan yahay waxa weeye khuraafaadka loo imaan doona ka hadla doona insha Allah ta'ala thumma ar-ruqa tufidi haday tahay min hummatin يعني إن السجاد الله يسيد أو تكبر قيس أبي صدق سنت هذه وحلا مده أما دب قلوا عي وحلا مده أما هنجر لها أو أما سعين بعد السجاد الله يسال وذاك فإن تكون ضيت هاي هي الرقية راسي من خالص الوحيين اللي بدأ وحي خالصة كتاب يسنى فذلك أركاس من هدي النبي نبي هدي سويه وشرعته شريعته سويه وددي سويه وذلك أركاسنا لا اختلاف خلاف مجره في سنيته سنة النبي خلاف مجره ماشي ايش اللي يقال مركب ايش waxa loo yaqaan ama awrida qofku awriyayo waa khatar way waxyaalaha u badan oo dhintaan nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis buu leeyahay akthar man yamutu min ummati ba'da qada'i allahi wa qadarihi bil 'ayn ummadeedu waxa u badan ay u dhimanayso wax u badan u dhimanaysa marka laga yimaado qadarka alle iyo mataqan qadaha alle laga yimaado isha way yaan la fuulaysa marka wax u badan dadku u dhimanaya nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ummadeedu wax u badan ay u dhimanaya marka laga soo tago yaani qadartii iyo qadaha Allah subhanahu wa ta'ala waxay u dhimanayaan waa isha way marka isha nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis buu ku leeyahay fa innahu la kana shay'un law kana shay'un hadduu jir la wax saabaqahu alqadara qadarta alla ka hormar la hadii jir lahaayeen la sabaqatu al'ayn isha ka hormar lahayd isha marka wax fuudma hadii jiraan wax qadarta alla qadaray ka hormar lahaa
isha weeye waxa ka dheereen lahaa marka waxyaalaha u badan oo qofka loo geeriyoodaa waa isha weeye dadkuna inta badan ma oga kumana baraarugsana qof aad yani wax yar si u fiirisay waxa jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin safarada ugu jiro baa nin la oran jiray Sahl ibn Hunayf la oran jiray waa qubaysanaya nin aad u qurux badan buu markii soo qubaysanaya baa waxa soo maray leeyahay Aamir ibn Rabi'a baa soo maray markaas uu warmaan warninkaan qurux badana warninkaan jirkiisu qurux badana meel afka muu dhacay isla markii inta yar oo leeyahay Soomaaliya warninkaan qurux badana afka muu dhacay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa loo sheegay waxa nabi markuu cidna ma ku tuhmaysan nabigu uu gartay qofka ilaahay soo cidna ma ku tuhmaysan salayn Aamir ibn Rabi'a ninkaas ay leeyihiin nabigu wuxuu yiri ugu yeeray loo yeeray فعلى ما يقتل أحدكم صاحبه ورقفكين محو صاحبك سدلايا هذا وح وراسه كو أرتي مع بارك الله لكم حوروي نكو قرب بدن عليها كو بركيه بارك هذا ورقفكين مساحبك سدلايا محاسا سنوي وهذا كو أرتي وح قرب بدن بارك الله محوروي markaasuu nabigu wuxuu yiri hadda uu wasaqaado marka qofka hadii il ay ku dhacdo oo la garanayo ishaas meel ay ka raacday inagu badanaaba isha dadka xanuunsan dadka ma taqaan qofka gaajada haysa iyo oran jiray cuntada uu kugu caawiyo cuntada kale isku caawiyo kitaabka oo qof qoran karo inuu kitaab cajiib ah wata maca salaam ishaas oo kugu dhici karta iska daa wax kale marka qofka hadii isha ku dhacdo oo la yaqaano qofkii ilayay qofkii ayuma la yaqaano nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dawo wuxuu yiri uu wasaqaado minaha qofka jirkiisa inta weesada iyo soo dhaqaaya feerahaas oo biyo ku soo dhaqaaya biyaha marka weel bal soo qaadaya qofkii isha ay haysay baa loo geenaya oo ku qubaysanaya marka nabiga ninkii uu amray inuu saas sameeyo uu sameeyay ka bacdi biyihi baa waxa loo geeyay Sahl ibn Hunayf oo markaa jiran mar alla markuu ku wasaqaatay yani ku qubaystay biyihi baa waxa yiraahdaa saxaabi xadiis warna wuxuu leeyahay waxaad moodaa inaan horeba waligiis xanuun ugu dhicin horwada bood marka ishu wax jira weeye in la iska ilaasho adkaarta subaxdii iyo galabtii qofka uu daa'imo ishaas ku dhamayso laakiin nabigu saynu sheegnay waxa u badan dadku u dhintaan isha weeye dadku ma dareemaan Aisha radiyallahu ta'ala anha waxay tiri كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرني نبي وحها مدي أمر أريجا مدي أمره النبي عليه الصلاة يعني النبي عليه الصلاة والسلام وحي أمري أن أسترقى بالعين إن اسكتوا في عينته إيش وأذكار أخذته إن أذكار أخذته سأنا سجل عليه إيشي marka ishu marka qofku iska ilaalinaya adkaarta la sagaalaya iyo wixii kitaabkii sunnada quraanka xasaas bahalka qofku cunana sidaas oo kale quraanka ba lagu daweynaya nabiga kaleey salaatu wasalaam saxaabadiisu 10 oo malay Abdullah ibn Mas'ud socday ba waxay u yimaadeen reer bay u yimaadeen marka reertii marti soo bay wadiisay oo u diideen goorta ka tagi lahayn waxay ninkii sayidka bay arkeen bahal qaniinay oo jiran oo jifa markaas waxay ku yiraahdeen haddaan wax ku tufno hagaago in caafimaad qofkaani manna marti sooreysan waaya wuxuu ku akhriyay suuratul faatiha bay dhowr ku akhriyay ninkii horu ka booday nabiga kaleey salaatu wasalaam u sheegay waxa nabigu wuxuu yiri idin sheegay inay tahay wax la isaga daweeyo isha من قفة ضد عدس القرآن كاس أخرسته إيش هو سبب لكن وحيالها الله يسكت حرايو قفة واحد ينتهي صاريه ثم الرقى تفيد واحد لو يقانه تفيد مركب وين سنة شيء كتاب كسنوته النبي عليه الصلاة والسلام وحو رجلي صحابته وحو كيري عرضوا علي رقاكم واحد يسوب بالنكتة تستان ضدك واحد كو آخر إنسان أما إسكو آخر إنسان مركب إيش أذكر الله إنسان marka nabiga kaleey salaatu wasalaam loo bandhigay waxa diinta hay la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi shirkun dimala buyiri hadii waxa isku tufaysan ay shirka ahayn marka quraankii sunnada nabiga kaleey salaam hadiisti wixii ku soo arooray qofku maartay in la iska isticmaalo way thumma ruqa tufid la tufayi min hummatin idha fa'alta hada usamayso min hummatin humaha ta usamayso aw ayn humada waxaan ku sheegnay sunta xayawaanka ama baasho hoose أو عين أما إلبا أصميس فإن تكون هديت هاي تفيداس واحد اسكت في سدت هاي من خالص الوحيين لبدا وحي أو خالصة وحلا سوقاتي قرآن كي يسندي فذاك الركاس من هدي النبي هدي سويه والنبي هو استعمار جميل وأغنى هاي مركز سيحنا يا النبي عليه الصلاة والسلام بينك قل أعوذ أهل لبدا معوذتين كي يقول والله والنبي تقعميس وكو أخرين اسمرنجري وحس حجاء سمر حس ويا
وأخرين جري وكتب في جري تركي سمر جري وشرعته هي شرعتي ودديسي وذلك أركاس لا اختلاف خلافكم مجرو في سنيته إن سنته هي خلافكم مجرو تاسواتي سنة هي الويا أما القرآن كي سنة الله كان أما الرقى هديت هي تفدي المجهولة الله أقون المعاني معنى هذا الله أقون بلاي إسلام ما سمى كقرآن قفك أخري كتاب الديربي قالوا يقانوه باقران كتاب أخري بقولي طبعا آيات حق سود الجيدة واللي هذا ساي ساس سميسو وحاسب ما تقنا هليس أمكا لقى إلى الله يعني وحدو يهي وحب الله بوح يهي ما قال لما قلت قف وسو قري هواني قرآن إلى تيمي يعني waxaan wada prescription daawada oo kale boqol quraan baa ku jira laakiin waxyaalo badan oo bisinka xagga laga soo akhrinayo baa ku jira in isku akhrido saas oo kale marka waxyaalaha noocaas oo kala weeyaan waxaad tilmaamayna amma ar-ruqa tufidi al-majhula al-maani macnaheeda aan la garanaynin fadalika arrinkaasi waswas min ash-shaytaan shaytaanka waswas kiswiya waxa lagu tufaya haduu yahay waxaan la aqoon haduu yahay oo macnihiisa bal la aqoonin shaydaanka waswaaskiisa weeyaan wa fihi arrinka dhexdiisana qad jaa alhadith hadith ba ku yimi annahu arrinku inuu yahay annahu arrinkaasi shirkun inuu shirki yahay bila miriyatin shakila'ana fahdharanna kadigtoon waxa leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam hadith wuxuu ku leeyahay إن الرقى والتمائم والتولى شرك قرباسها وحيالها مدديسي الله آخر مكان الآخرين أيوه فقيدا تفتان كأن لا قوة حتى كل شرك ويه مركب واحد لو تفايا من هيرك لو تفايا أما إسلام تدقورت اللون كلنا هنا وقات الجمار باوية هديت هاي يعني واحد لو تفايا وحان معناه لا قوم وفيه أركا قد جاء الحديث حديث باكويني أنه شرك إنه شرك يهي بلا مرية شكل آن فاحذرنه كدكتور marka shardi baa loo sameeyaa waxa yaa la isku tufaayo shardi baa loo sameeyaa shardi waxa weeyaan marka hore la yaqaano waxaan lagu akhrinay wax la yaqaan inay tahay shardiga labaadna waxa weeyaan inay sharci waafaqay khilaafsanayn ka saddexaadna waxa weeyaan qofku inuusan aaminsanayn waxa la doonayaa aamin mal doonaya in maratay arrinkaani mujarrad inuu dhibta ka qaadi karo waxa wasiilo weeyaan ugu akhrinay ilaahay baa dhibta qaada subhanahu wa ta'ala وأنا أكتر إلى نقطة مقاضية إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر إذ هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس وحكاها الله يأوسي وضع وحويان يعني شطغيض عن الله وحيتان إذ كل من يقوله إذ علا كل من يقوله قف كستو أرنيا أرنكان عن معني سلاقون تفيد عن معني سلاقون قف كستو كهليا لا يدري أنه قرانين لعله يكون إنه يهي محض الكفر وحو أخرنيا قال لما عدنا تانوس ينوس أقوم بلغيا بوح أو أمس هو يهي وحن أخرنيا قف كتفايو من سحر اليهود يهود السحر كادي مقتبس كاسو laga soo qalqaatay laga soo minguuriyay على العوام لبسوه يعني لبسوه oo la isaga dhaxdaray على العوام عوامتي oo lagu sheekay waa quraan waxani oo marka wixiina faltabasa isaga dhaxdarsanay kala garan waayay waxan quraan ba isa waxan waxa weeyaan shaydaan wuxuu keenay yahuudu waxay aad u isticmaashaa ee waxyaalaha sirka loo yaqaan baad lagu yaqaan nabiyullaahi sulaymaan وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما أنزل علوم معنا آيات أيضا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أيضا مركب علوم معنا الله معنا بعضته صار لكن معنا صح معنا صح مع صح ما وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إما داس laga dhigo yani mawsul yawma wixii unzila lagu soo dajiyay ala malakayn laba malak oo bibaadila meesha ay jooga haarut iyo maarudaha sida culimadu yiraahdaan saxbilaan
waxa lagu soo dejiyay waxay ahayd malaa'ig baa lagu soo dejiyay sixirka laakiin yani fitna ahaan baa lagu soo dejiyay qof kasta waxay ku lahaayeen inama nahnu fitna fala takfur soo ma ahayn warna uu fitna nahay la soo dejiyay ha gaaloobina iska daayay marka wama unzila iyo wixii lagu soo dejiyay culimada qayb baa ka leexiya malaa'igtaas waxay yiraahdaan wama unzila lagu ma soo dejin oo nafi ka dhigaan على الملكين لكن واحد صح سيده هره او امارتي laga dhigo maadaas mawsuul laga dhigo إذ كل من يقوله mid kasto oranaya يعني ruqadaas majhuulada ahi la yadri an qaran la'allahu yakunu laga yaabo inuu ahaado mahad al-kufri gaalnimo oo yani cad aw amasahu oo hada wax qofku ku akhrinaya min sihr al-yahudi yahuuda sixirkeedii kaasoo muqtabasun la soo qaatay laga soo qalin qaatay warjay yani laga soo قاتي على العوام لبسوه أي إسقط تحتران على العوام ضدك عوانته أو حبك الجرانين كبعدنا فالتبس وحي إسقط في السميرو وحنا مقران بام حديث وي محيتها مجهود بالله كان كلا جرانين هذا واحد وياب العصري ملها بحركة ساعة سحر كما واحد أديك سددك أنت بدن أخريه قيبة كاملة ضدك سكون معها ملها رقية الله يقامه oo dadka la geeyo quraanka ku akhriyo waxay isugu jiraan kuwa dadka quraanka ku akhriya oo ilaahay diintiisa subhanahu wa ta'ala wax ay ka barteen dadka ku akhriya aan wax kala gaarsiin iyo kuwa iyagu sixir dadka sixirada si qofkaas line-ka u soo galo waxa arkaysaa 500 qof gabdho wali dumarkii 500 dumar meel isugu yaray booyad baa lagu buufinaya biyaha lagu buufinaya waxa ku jira sixir ku jira qofka lagu buufin birmaan baa tagnaa meesha imaanaya dadka noocaas sameeyana wax xiriir la leeyihiin jinniga xiriir leh marka la iska ilaasho laga marmaayo qofka uu tagay soo ka soo qaadanaysa maxay quraan lagu akhriyo anaga quraanka haweena gabar quraan lagu akhriyo maalmaha kamid ah niman arinta awal shakisanayn ba quraan ku akhriyo markii yani qofkii aan ka dareeno xogaa inuu biyo doorsan yahay oo xilli jinnigu hadla jira oo gabadha gacanta qabto marka uu intuu soo buuxiyo waanigi xiriir baa ka dhaxaysa jinniga waanigi gabadhu gacanta qabto xor banaan xurmaha dhacay ma waxaan isbalaanka istaagayna wax yeesho waxa jira marka shuruudo ay la galaan dadka jinniga ku jira qofka isaga shuruudo la galaan qofkan saarayo hadiga wax saarayo waxa ka qof soo fariistaba qofkii baa qayriye jinniga waa ka baxay maxaa dhacay dadku ka awood badan waxa laga yaabaa qofka inaan taqwo lagu aqoon culimadu waa soo martay Ahmed ibn Hanbal radiyallahu ta'ala anhu waxa la sheegaa qofka jinnigu ku dhaco kala kabiisa loo geyn jiray jinnigu markuu ka baaqo taqana waa ka bixiyo qofka carruurta لكن احنا وين نقام قف laga yaabo in salaada aqoon baa soo galay jinniga markuu ku bilaabo jinniga waa baxay ma qofku waa qeylay jinniga iyo qofka sixir ka dhaxaya dadka haysta meelaha ruqyadana badanaaba iyaga yaani sixir iyo wax la mid ah ku adeegsan si ganacsigooda wuxuu u socdo qof arkaysa quraan lagu akhriyay oo aan jinni ka hadlin isaga baa soo galay erayo isticmaalay jinniga baa hadlay marka waxyaalahaas la iska ilaasho insha Allah ta'ala فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأى عنه من كسر الشكي وحيالها من يهودي وحنا عصلا كان بوحيلي فحذرا يعني فكن واحد هذا حذرا من الدكتور وهو ثم كبعد حذار كدكتور منه رغيض النوع عصو كلاه لا تعرف الحق حق إنادا كرنو وتنأى عنه أتكلم حتى مكان أكفوا تحق ويسكترين waxay ka soo hadal marka waxyaalo la isku xiraayay oo dadku maaratay u yaqaaneen wax cilinayaan waxay ka soo hadalna fuqradii halkan wuxuu ka bilaabayaa tamaa'im wax loo yaqaan oo qarraasida waxay nagu dhaqan qarraasta qofasi buu xiraa qof baa xaanshe kaliya ka dhiga oo dano ku xira qola maqaar si loo ilaasho si uusan u baariyoobin maqaar lagu xiro waxa uu leeyahay marka sheekhu وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف تنوح تماما يعني تماما بهاش لو يقراس وحلو يقام هذه آيات القرآن كده كقرين علماء قيب كميدة صحابة قيب كميدة عبد الله بن عمرو بن عاص وكريه waxay yiraahdeen quraanka waxa ku qoran uu yahay waa qofku waa xiran kara
laakiin sida u badan yihiin sida Abdullah ibn Mas'ud ibn Abbas iyo Hudayfa waxay leeyihiin lama kala saar ma banaana marba hadduu qofku waxa xirto oo tala saarso waa ka imaanaya mac salaama nabiga calayhi salaatu wasalaamna xadiis baa xaliya anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam aqbala ilayhi rahatun nabiga calayhi salaatu wasalaam koox baa nabiga u timid cusub marka hore nabiga in la baayactamaan mubaayac la galaan fabaayaca 9 wa amsaka can waaxidin 10 nin baa hayay 10 qof baa hayay 9 ka mid uu nabiga la baayactamay nin nabiga waa ignore galay midna waa ka jeestay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas waxa lagu yiri ya rasuulullaahi baayacta 9 wa tarakta hada rasuulka ilaahay 10 qof bay hayeen 9 ka mid baa la baayactantay midna faraha ka qaaday qaal nabigu markuu wuxuu inna calayhi tamiima qardaas buu kaas xiraya ninkaan iska daayay oo faraha ka qaaday qardaas buu xiraya soomaaliya فأدخل يده عند النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها وكسو بويي فبايعه مركا والله بايعته وكان النبي يقول مركا قفكي قرداس حسته إلهي سبحانه فقد أشرك وحليه من علق تميمة فقد أشرك قفكي قرداس حتى قفكاس شرك بليه صوبت صار شيء وحا كإيمان ليس قفك إنه آمن وقرداس تا أنتو قبوه حوم عوري كرام محمد سمين كرام حبكم مدعي كرام إلهي سبحانه وتعالى inuu saawad ku leeyahay moodo waxa imaanayo wax kale saas shirku noqotay marka taas uu ka hadlay wuxuu leeyahay fi tamaa'imi qardaasihi al mu'allaqati la isku xiraay la xirtay oo qoortii lagu xirnaayay inta ku haday tahay aayado mubayyinatin aayadi cad haday tahay oo aayada kaliya ku qoran ba fal ikhtilaaf ba waaqi'un dacay bayna as-salaf saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo salafkii واسكو خلافان waxay yiraahdeen waxa ku qoran qardaasta haday quraan tahay qolay waxay yiraahdeen banaanta saan sheegay Abdullah ibn Amr ibn Aas iyo qolana waxay yiraahdeen banaana فبعضهم قيب كمل سلفكي اجازها way baneeyeen haday aayado quraan ku qoran yihiin wal bacd qeyb kamidana kaf way ka joogsan yani manaca way joojiyeen lama xira kale yiraahdeen wa intaku haday tahay khilaafku waxa uu ka yimi هذه آيات القرآن يهم حال اسكو خلاي قالوا فرصة آيات القرآن مركا يهم بالاسكو خلافه هذه قرون يشرب الشرك يدربي هنا كورمك وإن تكو هذه تهاي مما سوى الوحيين كتابك أي قرآن كوحانا هذه يهم وحوراقنا كقراني قرط الله وحرتي فإنها أرنك وحوي أرنكاسي شركوي بغير مين شكل آن وحكو قرآن قرداستاس هدي تا waxaan kitaab iyo sunnah nabiga kaleey salaatu shuqul ku lahayn arinka isaga ahi shaki kuma jireen shaki tahay waxa kan balse marka ayat tabi saxaabada nabiga isku khilaafeen haday wax kala tahay maxaa ma la sameeyay wa inta ku haday tahay waxa waraaqda ku qoranay qardaasta ku qoranay mimma siwa alwahyayn labada wahyi waxaan ahayn haday tahay fa inaha shirku way bighayri mayn shakilaan bal iska badaa inay شركة كلية هاي إنها يدو قسيمة الأزلام وأزلام توحي له أورنجري وحوي قوية أزلام توحي مكان أزلام توحي وحي سمين جرين مشركين توحي سمين جرين مركي سفر آذيان قرع ذا وحلو يقام ويل بوحي كل ذي جي صدح يعني صدح لوح أو مدوحة كقرا افعل منه حقوقا ولا تفعل منه غفل باقوقا يعني سفر بوربين وآده والسفر كعادة إن بلق وقود عسين كالمكور أهرسة أزلامتي آت ويسول الله بنايان قرط ورشة قلايا مركا كعنتو قلنا يدي صوب هذا افعل صوب هذا سفر كسبوا هذا بد بهذا يوي بد بهذا وحيالا يكبر كجرين وحكم لها وحيالا يكبر كجرين وحكم لها ممكن سفر قلان وكلي تقمر يكسو أرورا وقيرين جرين جنك ميشاس جوغو هذا ما ينقوه وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا سوم قرأك الله سبحانه وتعالى وحليه هاي إلهي سبحانه وتعالى وحي أهايان رج إنسي كمده كو مغنقله بأهانجرين جنك رج سماء جرجرين فزادوهم رهقا وحي أزيادس أنا كاي سلاحي عبسي يدب أزيادس marka intayna bixin bay waxa sameyn jireen qori tuuran jireen haduu soo baxdo ifcal safar u galay aamin baata
هدو الله تفعل صوبحه صفر كوكب باقنايا محايا بلايا كل عيسى شلبو بلايا ما باكل عيا هذا صوبحة تنقفل خلوه يقانو قفك مرات بكل الله ما كتور شديد marka wuxuu leeyahay kaas yaani qarnaasta la xiranaya waxay la mid tahay aslaamtaas في البعد حق فقاشهي كلام تهي عن سيما الإسلامي ذاتك إسلام كأهلك على مدودي بيكفك تهاني كايسك مركا وحيالها هذا عن شيء إنه قرأت ورشة هي قرأت ورشة صحة باجرته والنبي قلت مثلا النبي واحد يسبح كل هي لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا لاستهموه ويقرأت الله هذا أقول الله يصفك أهرية صفك أهرية خير كجرة يأدنك خير كجرة ده أقول الله يا وأي سكة كهل إن يقرأت رتم ويانا ويقرأت الله تاسو كلامك واحد خلوه خلاص عربية صفك ورنا ده وحرك أنا نبي وحجارسين إن مارت لسكو حجيو أنا كاسوري لو قرأت إن أنا روح على بين أنا سوكر ودو بني نقفك أدك لسوق خلوه لكن وذات أدك يلا بقصر أدك يسقى في صار marka waxa bedela marka arinka isaga ah qoratuushada wix la midka ah oo shirkiga ah istikhaarad safar baartina gasho istikhaarada ba khasaanaysa goor baartina samayso istikhaarada waa samaynaysa hebel baartina la shirkoodo istikhaara galaysa allahumma inni astakhiruka ilahi ba yaani talawadisanaysa soo marata ilahi ba la tashanaysa marka istikhaarada la bartay laga barmaawiya فصل من الشرك فعل من يتبرك بحجر أو شجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية فصل انت روحك للدونا وحيالا ذكو بركستان حيالا بركستان قبر يوحنا عاسكرا فصل من الشرك وحا كمدا فعل من قف فعل كيس يتبرك بركيسنا بحجر دغح ميل يلبسو بركيسنا أو شجر أما جيت أو بقعة أما ميلها كمدا أو قبر أما قبر بآدية وصو بركيسنا أو نحوها وحي لمدا أرين قال شرك وي يتخذ ذلك المكان ميشان أو كدغان عيد وكدغان هذه ميل قبرية أما ميل عبادة لو آدو بلوس سنة بلا آدو مركمدا عيد وحل هذا wax waqti loo sameeyo lagu noqdo sida ciidaheen oo kale nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu yimi magaalada Madiina ciido badan iyagoo labu nabigu arkay ka bacda wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahay wuxuu idinku badalay laba ciidood ka fadli badan ciidu adha iyo ciidu fidriga marka hadii bil walba qabri aado ama bisha sanadka qabri aado arinka isaga ah waa arinka shirki keenay weeyaan ciid ba ka dhigtay يتخذ ذلك المكان عيدا وبيان عدين أن زيارة لصبغنا قبورها تنقسم من القيب سميسو إلى سنية إلى سنن نقطة وبدعية إلى بدع نقطة وشركية إلى شركتها قبورها بوغشضة ونأخذ نصدح بين من نقطة إلى سنتها سيسنة نقطة سوأخذنا وإما إلى شركتها أو قفوا قالوا بها تصبغه وأرجع سميه وإما إن بدعتها كل أرضنا إن شاء الله تعالى هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم هذا يعني أركان صوت شغلين ومن أعمال أهل الشرك ذاتك أهل الشرك عمل كذا وحكم ذا من غير ما تردد شكلان نقنقش الآن أو شك أما شكلان وحكم ذاتك على الشرك عمل كوضا ما يقصد وحي قصديان الجهال ذاتك الجاهلين تاهي من تعظيم وينيان ما الذي لم يأذن الله أن إدمن بأن يعظم إلا وينيه مير إلهي أن إدمن إلا وينيه سيسان وشرك ويه انت سبحانه ذاتك على الشرك وحكم عمل كوضا inay weynayaan meel alla aan weynayn sida qabuuraha wixii lamidka meel alla weynaye baa jira marka waxa kamid ah mesela Kaabado kale Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu Kaabada intuu soo agmaray
أو دون كذب وحي والله أما والله لا أعلم إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع أنا أوجه هنا دقحت هاي سنقولنا هي يعني حجر أسود كان قفكو أدو هيري كرو دكانيا هذا ماشي عيري كنت هاي يعني وشو تابسينيا هدو وش نجاري كرجعان يبصاص كله يا مركب حجر أسود كان النبي حديث بيقول له يأتي هذا الحجر دقح وإيمان يوم القيامة ما أنت قيامها له عينان يبصر دقح ويا حجر أسود كله يقانون قيامه وإيمان يا ما أنت قيامه وإيمان يسوى الله بين له واللسان عرب له ينطق وكوها الله ويشهد لمن استلم عليه عدة تابتي أما نكتي أما إشارتي بقف كاسبو وشفع قضية ومركاتك عاية مركا وأردت مركا ضواف الله سمير يستقل قبل هذا ضواف بس هو سمير سمركي كواد هداد قاري كرتوا تابان يسام وردوكان يسا ديكرة قام بساس لها مركا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي حجر أسودكم ما أنت قيامها وهو مركاتك عاية وقفكي قعدت ساس تابتي أما قعدت وتابي مركا وحي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أوهي نقحو إن هذا محبطهرين ما يليس قفك وحنا ما تركتت ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدانا أركي الله النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك كل كان يما قبلتك كل كذا نبي كل كان يا هدانا أركي الله والله أنا كل كذا بي ما يحبطه كان النبي بأمرين لو وين يو والله كن كذا مرت سيدنا حجر أسود النبي عليه الصلاة والسلام حديث بحكي كل هاي جنة الله قصوا قاضي مركورنا وعطاء وحمد به dadka dunuubta ay galayaan marka wixii aan la weynin oo dhan hadaa weynayso oo ku dhamaatay waxa la timi waxa aan la weynin bala timi waa shirka weeyaan hada argan soo sheegnay iyo wa min a'maali ahlu shirkiga a'maashooda waxa kamida min ghayri ma taraddudin noqnoqosho la'aan aw shakkin ama shakilaan waa isku mid ma kiiba kamida yaqsudu al-juhalu dadka juhaasha u qasdaayaan من تعظيم ويننت ويننيان ما كي لم يأذن الله الله أن إذمن بأن يعظم إلا وينيه كمن يلد ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض شجر متخذ ذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان كمن يلد سلكي مغنقل أو كلا وفك مغنقل أو كلا ببقعة مال أو حجر أو رجح أو قبر ميت أما قف بنتي قبر جيس أو ببعض الشجر أما نرتقي بكملة متخذا سوى كدغنا لذلك المكان ميش يضعه عيد كدغنا كفعل عابد الأوثان سيده كو عابد صنميده أو كلا وحياها dadka sameynaya shakwiya nabiga kaleey salaatu wasalaam saxaabada wuxuu leeyahay anagu marka islaamnay oo islaamnimada naga cusub tahay baan waxaan soo marnay kuwa mushrikiinta waxay lahaan jireen geed gob ah oo ay sultaan mataqaanaa fariistaan ay weerayaan ayna suran jireen saafaha oo halka ku cibaadaysan jireen meeshii baan soo marnay biir waan soo dhaafnay geed kala gob aan marka nabiga kaleey salaatu wasalaam waxaan ku leeyahay ya rasuulallah ij'al lana daata anwaatin kama lahum daata anwaat rasuulka ilaahay waxaan noo sameeyay daata anwaat waa geedkooda weey si uu leeyahay oo kale geed aan ku cibaadaysan noo sameey intaas ku yiraahdo marka xadiisu aad min kufri baa ay markaas yaa markaas islaam baa hay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri waxa ku hadashay maantay waa gaalim waa wixii ku hadleen nimankii la oran jiray reer bani Israa'iil nabi Muuse bay la socdeen markaas waxay soo agmareen niman gaal ah oo yaani haysta maxay sanam haysta ij'al lana ilahan kama lahum aliha soma hay ij'al lana alihan soma masii jacay asmiya kama lahum aliha say ilahay u leeyihiin noo saydina marka nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu la tarkabuna sunan ladina man kana qablakum wa had raa'aysan umadina ka horeey wadadii ma raa'aysan marka lama ogola in qofku maartay sameeysto waxa arki jirnay laga sheekeyn jiray dad meel nabigu geelay nabiga maray Umar iyo loo sheegay dad inta ku leexdaan fariisto oo ku cibaadaysta nabiga maalin maray harsaday geedkii waa la gooyay waa la diri jiray waxyaalaha dadku ay ku fidmoobaan Umar ibn Khattab waxa loo sheegay nabi kamid ambiyada hore markii furusi halka la furtay baa wuxuu u tagay meel uu fadhiyo nabi baa ku aasan Daniel yiraahdo oo kamid ahaa ambiyada hore والنبي waxa loo soo sheegay Umar radiyallahu ta'ala anhu xilli Umar khilaafadaha wuxuu amray in laga saaro qabriga meesha uu ku jiro oo lagu aaso meel kale marka la aasay ilaa 100 god baa la qoday si dadkaas ay u iimaaneen mar kale sidii baa la sameeyay
marka in meel ugu cibaadaysto oo aada sanadkii ma aqan kaliixeed baa la aadi jiray oo maalin dhexdaas halka tuulaa joogay wadada taalla baa baawur la raayo ma arkay qola aqraabo ahna baawur raayo samaan tuuladan shirad iyo xaj khayr war maxaa dhacay saalay odayaashii baa xilligoodii baa la gaaray oo waxa laga buuxiyey maxaa la dhahaa yani xoolay baa la wadaa arrinta noocaas loo safraayo qabriga diintu maxay ka qabtaa qabri loo safray diintu maxay ka qabtaa waan u tegi doonaa waxaana fiican walaalayaalow cibaado kastoo aad samaynaysid laba shardi baa loo eegaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam sameeyey iyo wixii ay khilaasiyey hadday nabigu sameyn inaad samaysa maaha taana wuu tegi doonaa insha allah taala ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام فإنه الزائر فيما أضمره في نفسه تذكيرة بالآخرة أنت لو تحب على سيارة إنك قبورها لصوص سيارته صدح نوعية صار شيء مدبع شركة مدبع بدعة مدبع سنية ثم كبعد أنت أمرك نصوص شيء كبعد الزيارة سيارة قبورها للسيارة على أقسام ثلاثة قيبة صدح وياه قيبة صدح وياه يا أمة الإسلام أمة الإسلام كي يعني تمام البيت بيته هو بكراي فإن والزائر بروف الإسلام صدح النوع كالدوان وقبورها وقشود ضعه فإن والزائر قفكس يعني بوقنا يا قبورها هديو يهي مني يستي وقلبي وكهيا فيما وحي أضمره قلبي سكوها يستهدو يكون يستي في نفسه نفس الإحداث كل يستي تذكرة بالآخرة إنه آخرة مصدقه نبي عليه الصلاة والسلام هو يدي يسبو قبل كذا صوب بغضي مركا إنه أدعي اللون ديدي وتنسب كتاب السيرة الله وخلنا كورية كهذا الله لكن واحد الله إدمي إنه قبوري صوب بغضي قبورتي صوب بغضي محايا النبي وحي صوب بغضي قبورها آخرين يحسوسين إساء أما قبر قال هم نقضوا أما إسلام نقضوا بغشة ديسو قفك قبل حيصوب حسوسين إساء محاي إنه دماري آخر هذا marka wuxuu leeyahay qofku hadduu qalbigiisa markuu qabuuraha aadayo qalbiga gashado tadkirata bil aakhirah inuu aakhiraba soo xusuusto thumma ka bacdi markuu qabuurihi aado adducaa lahu naftiisa u duceeyo iyo walil amwaati dadka dhintaba u duceeyo bil afwi iska daayid ugu duceeyo wa safhi iyo isku mid iska cafil ugu duceeyo can zallati qofki gaafif ka dhacay hadduu markuu qabriga aado markuu niyada gasho inuu qabrigan u aadayo inuu maartay aakhiro ku soo xusuusto markuu qabriga tagana naftiisa iyo kuwa ku jira qabrigaba ilaahu u weydiinay dambi dhaaf walam yakun an ahayn ma'a dalika yani walam yakun wa ma'a dalika lam yakun an ahayn shaddar rihali mid gaadid loo xiray yani loo safray ahayn nahwaha hageeda oo markii qabriga la tagay walam yaqul an looran hujran hadal xun looran كقول السفهاء سيدتك السفهاء أو من قام كهذا القوضة كلام فتلك تاسي سنة ويه أتت ويتمي صريحة يضو قعت في السنن سنوينك أحاديث تاسو المثبتة الصحيحة سنن وصحيحة بيدت كان دور كان معناها وحوية وليه هاي وحن صور شيء نقفك زائر كاو قبرك آذية أما قبورها بوغشو وصدح النوعية نوعي كواد إنه سنة هاي أبو نوشاقي ونوعويا قفكو مركو قبرك آذية إنه آذو إنه آخر صوح خصوصته مركو قبرك التقنى إلا وأنا يكون كجنا مياشا ونوضا بداف ونفتيسي إيوه ضدكي قبرك كجنا بدأ بداف ودعيه إساق إلهي ومريها يوفلاس قبرك آذنا سفر وما آذن مركو قبرك التقنى وحنكو مهدلون الشركي يكو مهدلين أرقى السنة ويمك أرجع إسقى هي سنة والنبي عليه الصلاة والسلام ودي إذا مركا إن خبورها سفر له هذا وهذا تمامي وهذا كريه حد يوحي لما كان تمامي إن أساس سفر وهذا كوب بنانا نبي واحد يسبح كل هي لا تشد الرحال لو ما حر لو ما أتكي سفر قاعد لو ما أتكي يعني لو ما سفره إلا 3 مساجد صدح مساجد مالك على سفر لو ما هذا العبادة لهذا المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى مساجد كالنبي يا مسجدك حرام كلو يقال يا مسجد الأقصى بعبادة الله صفراء أبا هريرة وحى أدب على يري طول السيناء مش نبي الله موسى الله اللي بيهاي مركو كسر الله بطيب على لبوق بصدي مركو لبوق بصدي هذا مسعنون وكوخ عيب حلو جدي أي شيء
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله waxaynu sheegnay marka qabuuraha booqashadooda qaabka sunnada ah oo ku sugan axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiisku wuxuu ku leeyahay alaa innii nahaytukum can halaatin uma badaa lii fiihinna waddada waxaa jira saddex waxyaalood oo marka hore idii diiday kabacdi waxaa ii muuqata inaan ii banneeyo waxyaa naasikh oo mansuuq oo kale weeyaan saddexda waxyaalood nabigu diiday marka hore kabacdi u ogolaaday waxaa ka mid ahaa nahaytukum can ziyaarati alqubuuri waxaa idinka reebay marka hore dadku markay ku cusbaayeen islaamka oo dee sanamyadii iyo waxyaalihii dadku booqan jireen weli qalbiga kaga jirto waxaa loo diiday inay qabuuri soo booqdaan uma badaa lii annaha turaqi alqalb kabacdi waxay ii muuqata inay qalbiga jilciso qofku markuu qabuuraha tago watadmac watudmicu alcayna isha inay ka ohinayso وتذكر الآخرة آخرة خصوصا إنك هنسو فزوروها ولا تقولوا هجرا صوب بغضو أفهمها كوها اللي ما كانت ماشي مركا قبرك بوقشدي سقاب كان أشياء أصوب بوغني وحويان طفل بقى وواحد يدور إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام رجل دور بقى النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وديسي يعني دمر كدر بوقشدي قبورها وكلام النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وديسي قبورها مركا أنت محان لها marka nabigu waa baray assalaamu calaykum ahla diyaar qowm mu'miniin saas oo kale inay mataqaanaa u ducayso wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun yacni qofku wax ku tusaysa weeye qofkaan inuu u diyaariya geeri inuu diyaar u yahay annagu inay ka damaynayno waa idin soo hareeraynaa goora inin imaadna waa in imaanaynaa eragaas wuxuu xusisay waan jidda annagoo duruus ku jirna baa ninbaa waxaa is weydiinaya meesha ka nima in la yidhaha wax nagu yeego waxay ka timaadeen waddankan ka nimaan u sheegna marka carabtuna aad buu jecel yihin ma halkaasa ka timaadeen haa wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun biyo marka yacni annaguna in sha allah wayna soo hareeri doona marka marka hore waxaan qaatay inuu ka wado asxaaba qubuur baanu nahay wadda halkaa degan nahay dad asxaaba qubuur ayaanu nahayo inuu saa ka wado baanu qaatay markaasaan waxaan ku yidhi in sha allah markaas wuxuu yidhi annagu waa soo soconnaa waa imaanaynaa yacqub ku daray markaas lagatun adduunya ka wada marka si kastaba ha noqoto nabiga caaisha wuxuu baray qaabka u booqanaysa qabuuraha dumarku markay inay soo booqdaan waxa weeye waa iyaduna wax sunnaa weeyaan inay aadaan ama culimmadu waxay ka hadlaan inkastoo da sheekii joogo itbaacu ljanaa'iska waxaa loo yaqaan haweenku inay janaasada marka la qaadayo ay mataqaanaa dumarku raacaan janaasadii baa lasii wadaa markay ku tukano maalan kaba soo qaado kale inay ku tukadaan in laga hadli maayo laakiin raacitaanka ay dabagelayaan marka qabri loo wadaba culummadu ka hadlaan madhabka inagu haddaynu somadan soomaalinahay madhab imaamu shaafici iyo xanaabilada marka loo eego waxay banaynaya waxay leeyihiin waa karaahiyo haweentu inay aado micnaha qabrigii marka loo socdo oo janaasada la wado inay raacdo
وكراهية إلى هذا يعني تحريم مقارسيان ماشى وإحنا درسنا حديثكم معطير صحابة داس وداس اللي هذا هي نهينا عن اتباع الجنازة وحمل كريبي إن الجنازة رعده وجنازة ما كل السيوف وضع رعنه ولم يعزم علينا نلكم أتكيني ساس مركب عليها مركب هوري ريبتان كالريبي يعني نهي لتنزيه بينها حرام مقارسيا هو أنت الراعي في الجنازة ما كان جنازة السيوف وضع هل كمذهب أبو حنيفة إليهين قبل حرام لك تهي إن إمارتي جنازة دي رعده علماء الضمبو بن باز ابن عثيمين الناس اللقبان وحالكين علماء كم من الإمام مالك سيدو كلو حليه هوانتا دأدا ويني إن الجنازة دي رعده وأو بنانتا إيوه قبل دأدا يرو لقد انت قفك ميت كلا سيوضو أما أودلا أما ولالك ديها حدي لقب بقاينين إن مارت سنة كتمادو وهين إيا قيلة يتمادو حدي لكن وهين إيا قيلة لقب بقايو وما بنا نعرف السلام وإحنا شيئنا مكة فتلك سنة أتت صريحة في سنن المثبتة الصحيحة أو أمسه وإحنا نقول قبورها بوغشوض إما إنها تهي بدعية إنها بدعتها وإما إنها سنتها وإما إنها شركتها سيد السنة ما صوشا وحوليه مركة أو قصد الدعاء والتوصل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة أو أمسه قصد وحول قصد الدعاء دي ودعاء سنة يسقى دعاء دي بقبر ولا قصدي معها يقول ودي سنة يجي قبر ودي سنة ما تقف وجري يسقى بالدعاء دي سي ولا قصد قبر بلاده يود توصل وحول الله وحكست الله سبحانه وتعالى يكون دوينيه عمل كيفنا أيوه وحول هذا قبر بلاده توصل كاسو بهم يوم توصل يتجد تجايو إلى الرحمن الله الرحمن جل وعلا الرجاس مك فبدعة بدعوية محدثة لسوكر لي ضلالة بادئة بعيدة فوق كاسو كفوق عن هدي ذي الرسالة رسالة دان كي إسكالها دي داني أما إشارة نقول أما صاحب لا خليك بعيد عن هذه الدي تنأه أما ذي الرسالة صاحب الرسالة نبي عليه الصلاة والسلام هذه كي سبع كفبته إن كان قبورها مركو تجي مبرجين عنها دت الكجري لكن دعاء يسيب ولا قصد قبوره ووحي السري ودام قبورها دا تكته هل كان الله سبحانه وتعالى وشبدا تاسنا وحوي بدعة وياه بدعة كستنا ضلالة وياه نبي وحي تمامي الضلالة كستنا وفق النار بكينيسة وإن دعا المقبورة تنتي شركة قادوية وإن دعا المقبورة هدي وبريو في قبر كجري نفسه نفتيسا فقد أشرك بالله شرك قفكاس ليم إلهي بكل شكري شرك ليم العظيم وين وجحد أون الديني يعني إلهي سبحانه وتعالى دين تسمو دين وقفك أنتو قبرك يقى بريايا ضدك قبرها كجري أو أمس الأوليين وحلا مدينين ببريايا قفك إساقا شرك بليم وأنصوش أن العبادة ما كانت ترين الدعاء كمدة بل تقدر الدعاء حشان الدعاء هو العبادة دعاء إلهي إسكالها هذا قبرك لقشو وترى هبلو ساس باره عروض ما هيستو لبتو أسا هيست لقشو شرك بالتي مركب وحول يا شيخ لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن لن يقبل الله ما أقبل تعالى عليه سري منه إساك أقبل ما يقفكاس قفك أنتو قبرك التغي قفك ميتك أها وحوي دي سنة الله كأقبل ما يو صرفا ولا عدلا وحلقم عليه نفلا ولا فرضا يعني فرضا سنة إيو فرض تون لك أقبل ما يو قفكاس وحكا لقم عليه توبة إيو فداء توبة كان إيو اسفرش لك أقبل ما يو أو مركا فيعفو عنه العافيه ادعي لكل ذنب كستموشك الغفران ذنب كستوحده يهي إلا ضافه إلا اتخاذ الند إلا موية إنه قفك سميسته ند إنه سميسته صنم يوحل مده للرحمن الله سبحانه وتعالى الرحمن كأه وند سميسته لو ذاك ما ملك الله سبحانه وتعالى يحسس الله سبحانه وتعالى مركا أرجع سجاهي وشرك ويا الله وحليه إن الله لا يغفر
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي سبحانه وتعالى ما ضافه هذه شركة اللي يماده وقف كل أنت معنا سواء كنته بتكين لكن قف دون وحكى لكل أنته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إلا كلا صاروي قف بعد أنت سوى الشرك كجرة قف كاس مع سلامة الله كودا في مايو لكن ذنوب كلا كاب على أدوان كنته بتكين بكل متين إلهي دودنا وكو عفنا يا إلهي سبحانه وتعالى دودنا وكو عقابي هذه لك الشرك ذنوب كلا كنته بتكينته قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم marka wuxuu leeyahay sheekhu wa in da'a al-maqbura nafsuhu hadii qofkii qabriga ku jiray oo bariyo faqad ashraka billahi al-azim allah weyn ku shirkiyay oo shirki ula yimi wajahada wuna diiday la yaqbal allah ta'ala allah ka aqbal ma yaminu haqiisa sarfan sunnaya iyo wala adlan faradna ka aqbal ma yuhu fayafu anhu al-afiya marka yad kullu dambi kasta dhamaantiis muushikul ghufrana in la dhaafo oo mudan yahay إلا اتخاذ الند إلا مو يقفك سميستو الند يعني صنم يوحلم ده يوحي كلو العابد للرحمن الله سبحانه وتعالى رحمانه وكل يعني كلام الدقاية هاي بقدر إن شاء الله نقدر غالبا فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات وحكى الله إذا انتنا قدبين يعني مساجد لولا قصد قبرك مساجد قصد لولا يعني مساجد ملك يالله وقبر لسوق الناي أما قبر ملك يالله ومساجد بقدر قايل عباد الله هذي أريمها سمح كان شرك قوية مش علماء جرادان هذا الله بدك يسوه ريبا للدينية مساجد ماشي كويا الله قبري بالله كان قبري على صار أي مكان لقيني أما هذه قبر ماشي كو الله يوم مساجد لو قصتي وضدك عامدها معناها ضد وحنا مسيين قفك يستجاهي أنا وإحنا منباسة سجاش اليو صدق دي لين يعني دردار ما إن مساجد كالواس وكذلك أي كتب ما يعني في عيهن أو ليهن بين مساجد كقبلة يسيو الله ينجري كنجري مركز ماشي مساجد مركوركو الله قفك إسقاهي قبرقاهي ملك لين بلغني فصل تنوحي فصل تهي في بيان إن العدايو ما وقع وحي دعاه فيه بحديث العامة اليوم ذاتك هذا الجوغ عامة مما كي كمدا يفعلونها يسمينيا عند القبور قبرياشا بن عوركو سمينيا يوما وحي يرتكبونه أي كل عيان من الشرك الصريح شرك عدأة يو الغلو حد قدب المفرد الوحي الرائع عند الأموات يعني في الأموات ذاتك الانتهي أكتوضا أرماها سبان عدين نبي ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى ومن على القبر ومن قف أمدد يعني على القبر قبر دشيس سراجا أوقد كيفيي كشري سراجا وحال كان لو يقانو فينوس يلام بدي وحلا مدغيي أو ابتنى أمر دسي على الضريح وحي كدسين قبري وحي كدسين مسجدا مساجد بكدسين فإنه أركو وحوي أما قفكاسي مجدد من عضين يومية أصبينية من صوع أصبونيسين يومية جهارا كاسو لجهرية لسنن اليهود والنصارى يهود النصارى وضوضودي mid soo celinayo hadda cusboonaysiinaya weeyaan bayta macniis waxa weeye dadka qabriyada intay tagaan ka sameeyo maxaa faynuus iyo habeen soo jeedka iyo waxyaabo noocaas oo kala in la iska daayo ma aqaan kulay waayadii hore oo 8-madii iyo 7-madii maran 8-madii halka qabr leeyahay ku yaala kuba ku yaalay la isugu iman jiray qabr Allah in kastoo la yiri kuma aasnay nuurka salwaar saasna waa la yiri habeenna loo soo jeedi jiray oo lagu mashquul jiray waxa kale oo kamid ahaa baawurta dawladda imaan jiray waagi dawladda hore siyaad bare qabri ku yaala turada xaji qara oo samad yiraahdo waxa laga yaabaa konton sabaxina ka imaan jiray koonfurtaas ciidamo wax walba soo celin jiray waxyaalaha noocaas waxa way wax lagu xildheerada weeyaan xildheerasho weeyaan marka wuxuu yiri qofka noocaas sameeyay marka qabrigaas habeenka leerar baa ka shidan wala fadhiya
waxyaalahaas marka inay yihiin waxyaala diinta ilaahay subxaanahu wa ta'ala banaanka ah waxa ku tusaya nabiga ka soo qaatay nabiga waa inuu maqalay qabri dul fadhiya ummad ka khayr badan baa jirtay yani afwan dad khayr badan hore jiray sida nabiyada Allah subxaanahu wa ta'ala ma maqashay nabiga calayhi salaatu wasalaam qabri nabi aaday soo fadhiyay nabiga ka bacdi saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam ma maqalo qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam dul fadhiyay intaas oo xushdan yihiin marka wuxuu leeyahay qofkii intuu qabri tago fayruus ka shida ama qabriga dushiisa masaajid ka sameeya qofka isaga wuxuu soo cusboonaysiiyay wadooyinka yahuudda iyo nasaarada waman cidi cala alqabri qabri dushiis siraajan aw qada kashida siraajan yani fayruus wax lamid ah aw ibtana ama ka dhisa cala dariiqi qabrigi masjidan masaajid ka dhisa fa innahu mujaddidun qofkaas mid cusboonaysiiyo weeye jihaaran waliba la jahray an qarsan lisunan alyahuudi wan-nasaara dadka loo yaqaan yahuud iyo nasaarada iyaga caan ku ahaa inay meelaha qubuuraha ka dhisaan masaajidda ka dhisaan iyo wax lamid ah kam haddara al-mukhtaar an daa wa la'an fa'ilahu kama rawa ahlu sunan kam badana haddara intu ka digay al-mukhtaar ya nabiga kii la doortay al-mustafa nabigu intu ka digay badana an daa ariga isaga intu nabigu ka digay badana wa la'an yani wa la'ana oo yani waxa nuunka waxa loo reebay macnaha waxa weeyaan waa wasfiga ficilka weeyaan waxa la yeeneen gabayga manduumada macnaha wala'ana uu nacladay faa'ilahu ka samaynaya kama sidi rawa ay wariyeen ahlu sunan wuxuu tilmaamayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku leeyahay la'natullahi cala alyahuudi wan-nasaara naclada ku dhacday yahuud iyo nasaarada itakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida anbiyadoodii qubuurahoodiiba waxay ka dhigteen masaajid waliba xadiiskan wuxuu keenay wuxuu nabigu ka hadlayay markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam aakhiri xayaati geeridiisii nabiga calayhi geeridiisii buu arrinka xadiiskan yiri si aan markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dhinto yani aan loogu samaynin wax la mid ah yani waxyaalahay samayn jireen oo aan laga dhisin dhismayaal wax noocaas oo kale ah marka nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam la'natullahi cala alyahuudi wan-nasaara ilaahay naclada yahuudi iyo nasaaradii ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim anbiyadoodii qubuurahoodii waxay ka dhigteen masaajida ka dhigteen saas marka sheekhu wuxuu leeyahay kan badana xadara al-mukhtaaru nabiga calayhi salaatu wasalaam digiduu ka digay canda arrinka isaga in habeenkii laga dhigto faynusiyo in masaajid laga dhiso qabrigii wala'ana uu lacnaday faacilahu kan samaynaya oo masaajid ka dhisaya ama waxa samaynaya kama rawa ahlu sunani sayr wariyaan ahlu sunan ku yaada xadiiskan tilmaamay iyo waxnimada weeyaan ahlu sunan sida loo yaqaan waxa weeyaan afarta abu daawud tirmidhi nisaa ibn maajah laakiin xadiiska hadda tilmaamay bukhari muslim wariyo waxa laga wada dadka sunnada Allah subhanahu nabiga calayhi salaatu wasalaam diiwaan galiyay بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر بل اسكبداي قد نهى النبي والرياضي عن ارتفاع القبر مساجد إن لقد قبر اسكبداي نبي عليه الصلاة والسلام وحو الرياضي وديدي إن قبر كورلو قاضي وأن يزاد فيه إن لقى السيادي قبرك فوق الشبر تاكا وحكبنا يعني لو قاعد ماشي بقبريه إن لو قاعد ماشي قبريه هل يعني تاكا وحكبنا إن لقى السيادي قبرك النبي قواتي اسكبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل قبر كستا مشرف أو مغضى فقد أمر النبي وأمري بأن يسوى إن لسمو هكذا سال الله سمو ولكن الله سمو قبر والباء والله دسي إن لسمو الله بابيو والنبي أمرين هكذا صح الخبر ساسا خبر يكون صحيح يعني حديث صحيح على سؤال روتي النبي عليه الصلاة والسلام حديث بوحي كله يهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن طالب قف دروح لي النبي بوحي يردر ما أنا كل درين أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته نبي يقول يدري أنيقا إن صوب بري قبر كستو أو كرك عصر لصي إيوه سنم كستو مليا إن بابيوه أدونا سيدو خلاص سنة إن لا لسه قبرك أو متقنا
قرحيو ما بنانا نبي حديث بحكولية نهى رسول الله يعني جابر بحكولية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وادي ذي أن يجسس القبر قبر جينا لسه يعني الشمتدي نوردي يحلمت كانوا لساي رجحي إن لسه النبي وادي ذي وأن يقعد عليه إن قفض فريسته أما يقعد عليه لفظ فريسته وأن يبنى عليه إن لسه قبر جينا لسه والدي marka waxa la rabaa inuu kaaftoomo sida nabiga kaleey salaatu wassalaam sunnadiisa ah nabigu waa diiday qabriga in laga badiyo taaka laga badiyo inuu qabriga muuqdo meesha qabri tahay saynu sheegay nabiga kaleey salaatu wassalaam ku dhimanayay si aan qabrigiisa loo dhisin buu la'natullahi ala al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida hadaran nabigu wuxuu ka digaayay in sal la sameeyo nabiga isagoo markaa jiifa waxa laga hadlay oo jiran oo geeridiisi ba maxaawiye waxay ka sheekeeyeen qabuuro ay ku soo arkeen wadankii xabash ay tageen marka nabiga kaleey salaatu wassalaam saas u nacladay dadka ayaga wa kullu qabrin kasta oo mushrifin kor u kacsan oo muuqda faqad amara nabigu wa amray bi an yusawwa in la simo hakada sah al khabaru sidaas ayaa khabarkii u saxay wa hadara al ummata an idra'ihi faqarrahum iblisu bistijra'ihi وحذر النبي وكدغي الامه امته وحو غدغي عن ادرائه نبيغا ان لو خيل ديرادو امانتيس نبي عليه الصلاه والسلام ان امانتيس لو خيل ديرادو نبيغا وكدغي فقرهم وحا كدي ددكي marka ابليس با كدي باستجرائه يعني بورنتيسا يا ديريغرينتيسا dadka ku dheerinayo نبي عليه الصلاه والسلام حديث بو كله حديث عمر رضي الله عنه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم أنا جاي واحد قد بننا وما أنا الله هي جارسيننا سيدي ريب يعني نصارى كلوا الكريستيان لو يقانا أي النبي عيسى واحد قد بين إنما أنا عبد أنا أضون بانه إنما أنا عبد أنا أضون بانه فقولوا وحتى هذا عبد الله ورسوله أضونك إلهي يا رسولك سيدنا وكنبي إلا لبونبونية وقفوا سوّد هذا واحد لقيه بينه قاسي يوم تقلنا ملفو إلهي ومدور بركول هذا وحلي لا تغلوا في دينكم مرك لقاه الله نبي الله عيسى يسأل كلام وردين تينها كوحد قد بيننا سو بونبونة إلهي قاسية إلهي بقاسية إلهي ولكيسي إلهي ويا يسأل ما تقان دانتي نور بنتي يلا مذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام وديدي وحذر نبي جوا كدجي الأمة أمده وجدجي عن إدرائه إن يكون حد قدبان أمانتيسا فغرهم وكدي إبليس بكدي باستجرائه لرجالنتيسا يبورنتيسا وكبرنايو ذاتكن أساس ميان فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قنها عنه ولم يجتنبوا كما الله سبحانه وتعالى فخالفوه وي خلافين ذاتك النبي عليه الصلاة والسلام دقستو كدجي وي خلافينه جهرة سم مغتب وخلافين وارتكبوا وحدتك كدعان ما قد نهى عنه وحا وكرب به كدعانو ولم يجتنبوا كما يديران كما يفلان نبي هو كرب ان ددكو نبي ان يسي كو حد غدبان لكن حد غدب كبل يمادين او way ku xad gudbeen fandur ilahi qad qalaw inta insha Allah ta'ala waxaan ka qaadanaa habeen dambe jazakumullahu khayr barakallahu